halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiin ogaal ka sheegne waa warkeeni labaade isaguna ninka magaciisa la yiri Ilyas Cali Nuur oo ahaa wadaad lagu ogaa inuu dadka ugu yeedho dhanka eebbe isla markaana uu ka waaniyo wax xun iyo wabarka shaydaan ayaa mar kaliya qubay wixii uu hayay burda iyo minhaaj waxa la sheegayaa inuu axadkani guntigii u gaabsanaa uu shulaha geeyay ninkan ayaa kol kaliya dab soo yiri meesha gurboodku ku bay hoofeen kuna baabeen ee TikTok loo yaqaan waxa la arkayay wadaadkan kitaabka xooray oo dhaanto iyo qoobka ciyaar sameynaya iyadoo loo maleynayo hoobal gaasa baxay oo ka heesaya madal gaafa qofkan shaydaanku duufsaday ayaa tan ka leefay habaar iyo haaraan dhalada loo saaray kadib markii dadkii warkiisa hore u ogaay ku canaanteen inuu dabada ka tuuray looxii uu sidan jiray isla jeerkaasna uu isagu cawska uga hormaray xoolaha wadaadkan dhalafalooqoobay ayaa ku garamaya inaanu dumin dayrkii maka hase yeeshee uu gitaar iyo cuud iska garaacday isagoo dadka dhaliilayana ku sheegay qaar dhaga xidhan oo aan carre edeg waxba kala socon badi duulka wadaadda la yidhi ee Soomaaliyeed ayaa la soo baxa geed cusub oo aan hore loogu ogeyn iyagoo noqday qaar waran qaatay iyo weliba darweysada tuuray ugu dambayn qofkan ayaa wasiir ka soo noqday mid ka mid ah maamul beeleedada Soomaaliya wararka iyaguna ka imanaya ceelka xamar ayaa dhayda ka cadeeyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu daawada ku duugay heshiis dhigaya in mid ka mid ah duulka Soomaaliyeed ee uskaga loo dhiibay uu dib u hawlgeliyo diyaaradii bariisamaadkii carre edeg ka sheeganad ee Somali Airline xogaha ayaa sheegaya in Xasan Sheekh uu tan ku naasnuujiyay nin ka mid ah qolyaha reer xamar kaasoo waxoogay gambooyina ka sii bixiyay amintii uu xusul duubnaa wambarka uu haatan dhacdido waxaalaha ayaa intaa ku sii biiriyay in guyaashayna haya ay samada lali doonto Somali Airline oo dadka haatan raqaytida ah ay sii xasuustaan waxaa lagu wadaa inay isaga kala gooshi doonto badi dalalka carre edeg kuwaas oo ay u gaala bixi doonto socdaal isugu jira jarmaada gud ka lahaad barqa socod dheemaal caraabe fiidadab gudoodi iyo weliba gura bahlayn lama sheegin sida loo kala qaytay qaybsiga saamiga diyaaradan oo la rumaysan yahay inay soo xarayn doonto dhaqaale aad u badan dowladdii farmaajo oo haabka ku haysay inay iyadu hawshan malaq boodhiso ayaa dhammaysatay kimisteedii iyo kalkii loo doortay tiyo aanay far u dhaqaajin dhanka diyaaradda Somali Airline ayaa ahayd gaadiidka keliya ee baalka ku duula kaasoo ay dambaabi jirtay xukuumaddii kacaanka ee jaalasiyaad kuwaasoo la sheego markii la bililaqaystay dalka laga iibiyey diyaaradahaasi dalka Yaman waxaa kolkii qaranjabku dhacay diyaaraddaas kala hororsaday kuwii hargawaaxay hashii maandeeq iyadoo qolyihii daydega noqday ay taanooyin faraguudkooda ku gateen wixii ka hadhay Somali Airline weli halkaad nagala socotaan waa Taar TV iyaguna wararka ka soo deedamaya ceelka Nairobi ayaa bitinaya in halkaas ay maanta gadiidkii goradda isu laabeen ninka ciyoon caynaanka u qabtay bidoodka Kenya ee William Ruto iyo dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud labada nin oo isku daada dhanka talada ayaa yeeshay kulankoodii ugu horeeyay iyagoo ka wada jalbeebtay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay jaadka lagu fiyaamo ee mirooga labada madaxweyne ayaa isla gartay in dadka laga dhaafo culaad iyaga agabare ay qaadaan dilaal iyo melaal dooxata kuwaasoo deglayaasha qaadka ka gurta adduun aad u badan oo aan ku jirin sidoo kalena gelin gacmaha labada dowladood sidoo kale gafur culusta Kenya ayaa ogolaatay in mirooga Soomaaliya lagaga doorsado malayga tabaadiga iyo gaxash kale ee ceegaaga biyaha badweynta Hindiya labada nin ayaa sidoo kale ka wada xaajooday arrinta laga yeelayo ururka Al-Shabaab iyo weliba tadeegaamada Dooy ama Jubbaland waxaa lagu soo waramayaa inay meel wanaagsan wax isla dhigeen isla markaana ay ku kala tageen laab culan oo aan tabasho jirin isaguna ninkii jeer soo xabadaritay ee dabaabi jiray gobolka Banaadir ayaa maanta gadiidkii iska rogay wixii heeryo iyo weliba rar saarnaa saddexdii go'eel la soo dhaafay ninkan magaciisa la yiri Cumar Filish oo talada muhoobiyay gugii 2019 kadib markii la gaban waray marxuumkii uu xilka ka dhaxlay Yariisow ayaa dhawaan laga qaaday wambarkiisii ka gadaal markii halkaasi lagula itaalay duqa loo garanog yahay Yuusuf Madaale kaasoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maqaarka u marmariyay duqa Muqdisho Cumar Filish oo waxoogay hadal ah kaga tiraabay goobtii laga kabal qaaday ayaa ku tooqay inuu irbado badan dhuub u geliyay magaalada Muqdisho isla markaana uu ka soo dhalaalay wixii loo doortay wuxuu sheegay inuu ceelka xamar wax badan ka dooriyay sidoo kalena uu noqday xiddi ka soo baxay kaalintii uu ka ciidaminayay
wuxuu sheegay inuu carrakaawo ku shubay dhul kala duwan oo biyuhu ceegaagi jireen xilliyada ay magaalada ka maansheeyaan roobabka mahiigaanka ee curta. wuxuu sheegay in maalin aan tan ahayn la garan doono wixii uu halkaasi ka sii malaqboodhiyey. isaguna ninka gabadhka ku durka ee yuusuf madaale ayaa sheegay in duqii hore uu duco faraqa ugu xidhay islamarkaana uu isagu maanta yahay loogaha loo mina fadhiyo. si kastaba ha ahaatee ceelka xamar ayaa maanta yeeshay guddoomiye laxoos ah oo ay isla jaan qaadi doonaan dowladda cusub ee xasan sheekh maxamuud. ma tahay qurbajoog hadday haa tahay ku dirso lacagta transfer galaxy si fudud u dir adigoo adeegsanaya abka ama webka transfer galaxy. dir wakhtigaa doonto adigoo jooga goobta shaqada gurigaaga ama xitaa dalkii hooyo adigoo jooga ayaad isu diri kartaa. marka ugu horreysa waa kuu firi ama waa bilaa khidmad. soo casuum saaxiibada gaar ahaana ilaa 10 qof oo hel kuna guulaysa €250. isaguna daawade xildhibaan barkad jaamac batuun oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland islamarkaana ka mid ah xildhibaanada xisbiga mucaaradka ee wadani ugu jira golahaasi ayaa sheegay inaanu xagnaba uga soconin xisbigiisa wadani. haddaba xildhibaan barkad batuun oo ka halcelinayay weydiinka ka timid duulka warbaahin la yidhi ayaa bitiyey inaanu doonayn inuu xamaamta ka urursado xisbiga. wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey inay liidnimo iyo gunnimo weyn tahay inaad ciddii wax kaa dhigtay sidoo kalena magaca iyo maamuuska kuu samaysay aad ugu abaalguddo inaad cidla waaqla kaga dhaqaaqdo islamarkaana aad meel kale ka doorbiddo adiga oo aanay balaayo ku cagagsanayn buu yidhi. wuxuu sheegay inaanay siyaasaddu ahayn mid dan laysku gaadhayo balse ay tahay dadnimo iyo in wanaag la kala dhaxlo. wuxuu tibaaxay xildhibaan barkad jaamac batuun inaanu hal marna maskaxdiisa ka keenin inuu xisbigiisa meel uga watiigiyo tiyo ay muddooyinkii ugu dambeeyey dhanka xukuumadda u haarinayeen mudanayaal ay isku hindise iyo aragti ahaayeen xildhibaan barkad batuun sidoo kalena ka mid ahaa xildhibaanada ugu mucaaradada qadhaadh xisbiga wadani. ugu dambayn barkad jaamac batuun ayaa sheegay inuu ka mid ahaanayo xisbiga wadani ama ilaa iyo inta uu arkaayo xirsi iyo ciro oo dusha ku sita calanka shimbirta leh ee xisbiga wadani gaarka u leeyahay. si kastaba ha ahaatee dadka siyaasadda Somaliland falamagura ama faambiya ayaa hadalka barkad batuun ku sifeeyey laba arrin iyaga oo ay dadka qaar ku tiraabayeen inaanu xildhibaan barkad batuun gacan haadin ka helin dhanka xukuumadda madaxweyne biixi ama aanay marnaba xukuumaddu uga jadeer wacin inuu xaggooda u soo weecdo. balse dadka ayaa sidoo kale bitinaya in haddii ay taasi dhici lahayd uu xildhibaanku gelin horeba geesta cabuudha madaxtooyada madaxa u jeedin lahaa. dhinaca kale dar kale ayaa ku doodaya inuu xildhibaan barkad jaamac batuun uu yahay nin indheed garad ah oo dadnimo leh sidoo kalena garanaya abaalkii doorka lahaa ee loo galay xilligii uu ku jiray barantanka xildhibaannimo ee kal hore islamarkaana aanu marnaba goddeer ku ridi doonin gididiiladii dadkii isaga soo doortay iyo goobtii uu ku noqday barkadkan xildhibaanka. warkeena saddexaad daawada intaynu gudbi doono waxaan kaga tegaynaa intaa waranay waxaanu ku darna moogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante. sariflaha isku beddelka adeegga danabaysan ee saadiyey dahab ee Qadaafi Money Exchange wuxuu kula diyaar yahay adeeg hufan. hadduu shilinku kaa galay koortiyo aleenada ilaa laysma hawle Qadaafi uun kula diid. aleenka saad waxaad ka sarifanaysaa 32 13 33 haddiise gambooyinku kaaga jiraan dahab waxaad ka gedisanaysaa 65 44 33 760 Qadaafi Money Exchange. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland.